كون يسقال بقول يلحدنكي أي على السومالية يقوله الرجال هرجيسان لقتها تضبيا كنت السنوات باي ما كدم بيسي معمولاتي أنت هذا لنا يسكدم بي أما السومالي لانده أما الصومالي يده صدق قلبا دليله هذا مركا لصاء أورورنا هذا يشارك بطا معمول حمو عدالة درو هي مسق ماسو معمولاتي إن هذا يشارك صدق لا أي أنت بدنا لو إيديا صدق لا سنة waxay soo hoos galayaan qodobka maamul xumada labada kale waa ka farcamaya dabay hadana waxaan eegay bal sugayahanka qodobada sidoo uga hadlay musuq maasuqa beedka ugu caansan suugaanta Soomaalida waxa la ninkii la oran jiray Cabdulla Xasan wuxuu yiri musuq maasuq Soomaali waa meheradeed 100 sano inta la isla waafaqsan yahay beedkaasi waa ka horreeyay inta ninkaasi yiri waxa ayaan daraa 2017 anoo taagan ina Cabdulla Xasan aragtidiisi wali taagnahay way caalamka kale hadda eegta hal qarni Mareykan iyo Yurub hadda eegta waxay guureen inta in leeg ina Cabdulla Xasan ayaan wali halkiisii taagna waxa la musuq maasuq Soomaali waa meheradeed cadaalad darrada xaajaadana faqalo Ilaahay u naxariistay dhowr iyo 60kii ayaa wuxuu leeyahay mar haddii cadaalad tagto la istixgalin waayo inay nabadu taam noqotaa wato aan leeyay wuxuu leeyahay nabadu tiirarka ugu waaweyn ay ku taagan tahay hadaan ku koobaad baahay waa cadaalad maamul xumada 60kii markii caalanka la qaatay dadku waxay filayeen in channel la galaya gobonnimadoonkuna waxay ugu sheegay dadka ugu waramayeen oo lagu ololeynayay nimcadii waxa inaga fadhiyaa ninkan cad ninkii cadaaba meesha ka kacay nimcadii baa la waayay dabeetana gabyagii Soomaaliyeed dhinac kale u istaagay qaasim baa wuxuu leeyahay tusha midabka Soomaali baa dugulka moodaay misna lagu ma diirsaday qalbigu waa dirkii karale daab gudimo wali sooma jarin wiila shaandiraaye dambi ku hadli maayo ma arag dawladda rabi 60kii buu leeyahay nin kalena wuxuu leeyahay way kala dhig kan doofiyay iyo kan halkii dhiga nin kalena wuxuu leeyahay good iyo abeesa isbedelay garana maysa intuba waa isku aragti wuxuu leeyahay waxaynu kordhinay intuba waxay leeyahay waxaynu kordhinay hadda waa 60kii oo dadku baa isleeyihiin jannadii baa la gelayaa dabadeetana markii aan fikiray waxaan yiri wariyo mushkiladan isbedelka baa lahayn ee maamul kasta imanaya uu ka hore uu la mid yahay cilad waa maxay hal shay baa soo baxay waxa ay soo baxay waxa dusha soo maraya bulshada intii aan ku haboonayn inay dusha soo marto halkay ka soo baxayaan mar haddana sii raadi waxay ka soo baxayaan laba meelood meel waa dimuqraadiya oo waxay ku xiran tahay dhaqaale qofka hadduu dhaqaale haysto dhowr jago abiye ka dhintay oo la dhaxlay hadduu iibiyo golaha deegaanka uu soo booday ama jeclo ama nimco soo baxay meesha labaadna waa nidaamkan qabaliga ah ee reerka labada meelood baa soo saaraya qofkan aan ku haboonayn inuu dusha soo maro